weligaa ma rajaysay inaad akhriso maskaxaha dadka islamarkaana ma damacday inaad kontaroosho maskaxdooda si ay kaaga fikiraan adigoo aan ku hadlin hadal badan ama wax badan aan samaynin? amabase ma rajaysay in dadku in badan ay ku xasuusnaadaan sidoo kalena ay ku hayaan kalsooni xad-dhaaf ah? haddaba soo dhowow daawade, waxaasoo dhan waxaa kaa caawinaya psychologiga ama cilmi nafsiga. waxaa jira xeeladooyin yaryar oo aad u isticmaali karto kuwaas oo kaa caawinaya inaad kontaroosho xiriirka aad dadka la leedahay iyo xitaa aragtida dadku kaa aaminsan yihiin. haddaba muuqaalkan maanta waxaan kugula wadaagi doonaa 10 xeeladood oo dadka aad u adeegsan karto si ay u noqdaan kuwo ku qabatima oo ku hoggaansan adiga. xeelada koowaad: haddii aad aragtid qof cadhaysan islamarkaana adiga sabab la'aan ku maagaya ama kugu qaylinaya, horena aanad uga aqoonin ficilada noocan oo kale ah, ku qiimee xaaladda cusub ee ku soo kordhay qofkaas. waxaa laga yaabaa inuu arrimo kale oo cadhogeliyey inay haystaan islamarkaana ay ku kalifeen inuu ka tago qofkii uu ahaa. haddii aad ka aamustid qofkaas, waa hubaan qofkaas inuu ku raali gelin doono daqiiqado kadib, islamarkaana uu ka soo noqon doono khaladaadkii uu kaa galay adiga. xeelada labaad: dadka badankooda waxay xushmeeyeen waalidkooda, waxaanay aaminaan hadallada ay waalidkooda ku yidhaahdaan. sidaa darteed, haddii aad rabto inuu qof hadalkaaga si dhab ah u qaato, u sheeg taladan in waalidkaaga ku siiyey wakhti hore. dadkuna waxa ay hadalkaaga u qaadan doonaan si dhammaystiran oo dhaba. xeelada saddexaad: marka aad qof weydiisanayso waxaad u baahan tahay badanaa isticmaal kelmadda sababtoo ah kelmaddaasi waxa ay dadka ku sababi doontaa inay jirto sabab dhab ah oo codsigaaga ka dambaysa. xeelada afraad: marka aad waraysi shaqo gelayso, waxay qiimaynta kugu bilaabantaa islamarka aad gasho qolka waraysiga. ulakaca ahaato ama yaanay ahaane, qofka mas-uulka ah ama interviewga kaa qaadaya wuxuu eegi doonaa islamarkaana xisaabta ku darsan doona waxa aad ku bixiso inta aad sugayso waraysiga. sidaa darteed, sii qaado buug aad jeceshahay islamarkaana akhriso inta aad waraysiga sugayso. taas waxa ay sababi doontaa in aragti fiican lagaa qaato islamarkaana ay fududaato aqbalaadda shaqadaas. xeelada shanaad: haddii aad rabto inaad dareento qofkan kula hadlaya ama aad adigu la hadlaysaa in aanu la socon hadalkaaga ama aanu xiise ku hayn, waxa aad samaysaa isku laab gacmahaaga. haddii islamarkaa qofku ku dhegaysanayo ama uu xiiseynayo sheekadaada, waxaa suurtagal ah inuu qofku kuu daydo islamarkaana uu gacmaha isugu laabo. taasina waxa ay ku caddaynaysaa inuu qofkani si aad ah u xiiseynayo hadalkaaga. haddii aanay taasi dhicinna, taasi waxay caddayn kugu filaanaysaa inaanu qofkan hadalkaaga la socon. xeelada lixaad: haddii aad rabto inuu qof kuu qabto shaqo adag isagoo ku raaxaysanaya oo aan dhib u arkaynin, ha u ballan qaadin wax abaalmarina. waxaa laga yaabaa inay kuula muuqato ficlaan fiicnayn, balse marka ay dadku rajaynayaan waxa ay qabanayaan inay wax ku helayaan, waxaa tagta dhiirigelinta iyo xamaasadda. taasina waxay ka hor istaagaysaa inay iskood u xiiseeyaan hawshan ay qabanayaan. dabcan, inaad abaalmarin qof dadaalkiisa ku siisaa waa wax fiican, balse haddana ogow, xiisihii uu shaqada xiisayn lahaa ayaa ka tegaya. xeelada toddobaad: haddii aad dareento inuu qof isku dayayo inuu ku kantaroolo ama aad ka dareento inuu qofkani doonayo inuu amaradiisa ku marsiiyo, eeg sujuuddiisa korkeeda adigoo u eegaya si aan ka jeesi lahayn. qofkaas waxaa ku adkaan doonta inuu been kuu sheego, sidoo kalena uu sii wado amaradiisa. xeelada sideedaad: haddii aad tahay qof shaqaalaha islamarkaana aad u shaqaynayso macmiil cadho badan, mar walba waxaad dhigtaa xaggaaga dambe muraayad. muraayaddaas waxay kaa caawinaysaa in qofkii cadhaysnaa ee kuu soo gelayay uu iska arko muraayadda, islamarkaana uu u muuqdo wejigiisa cadhada badani ka muuqato, wuxuuna iska dhex arki doonaa muraayadda. taasina waxay hoos u dhigi doontaa inuu qofkii u dhaqmo si xadka bax ah oo aada xun. xeelada sagaalaad: marka aad meel fagaare ah ka hadlayso, sii qaado caagad biyo ah. intaa kadib, haddii adigoo ku jira fagaare ka hadalkaagii oo aad xaqiiqsato in qayb ka mid a hadalkaagii ay kaa luntay, cab dhowrka bashaa oo biyo ah. haddii habkan aad isticmaasho, qofna ma ogaan doono ama ma dareemi doono inay wax ku istaagay ama aad ilowday qayb ka mid a hadalkaagii. taasi waxay kaa caawin doontaa inaad u muuqato qof hadal yaqaana. xeelada tobnaad: marka uu qof isku dayo inuu kugu qayliyo, isku day adiguna inaad deganaato oo aad u muuqato in aanay waxaas saamayn kugu yeelan. marka uu arko qofkaasi adigoo aan qayladiisa waxba ka soo qaadaynba, waxa aad suuragal u ah inuu aad u sii cadhoodo qofkaas, balse waxoogaa kadib isaga ayaa isla yaabi doona islamarkaana dareemi doona xishood fara badan. adigu mar walba waxaad ahaato qof degan. be confidence. haddii aad halkan nala soo gaadhay, waxaan rajaynayaa daawade inaad wuxuu ka faa'iiday muuqaalkan. dhiirigelintu waa dhankaaga, ma hadsanid.